kadib markii cudurka COVID-19 uu ku dhuftay qaybo ka mid ah adduunweynaha oo ay baneeyeen shaaracyada dadkii bini'aadanka ahaa ayaa haatan waxaa la wareegay xayawaanka ay ka mid yihiin riyaha, jiirka, sidoo kale daanyeerka iyo xayawaanada noocyadooda kala duwan. xayawaanadan ayaa waxaa lagu arkay shaaracyada waaweyn ee magaalooyinka waaweyn ee awal ay ku badnaan jireen bini'aadanku, taasoo haatan lagu arkay xayawaan gaaf wareegaya shaaracyada iyo qaybo ka mid a magaalooyinka waaweyn ee ku yaala caalamka. kooxdan daanyeerada ah ayaa waxa ay qabsadeen bartamaha magaalada Bangkok ee wadanka Thailand, halkaasoo ahaan jirtay shaarac aada u saxmad badan iyaga oo haatan la yaaban halka ay bini'aadankii ay mareen. cudurka COVID-19 ayaa gebi ahaanba ka safeeyey adduunweynaha shaaracyadooda in lagu arko dadweyne aada u fara badan, taasoo ay si weyn usoo dhaweeyeen xayawaanku, islamarkaana ay haatan gaaf wareegayaan magaalooyinkii iyo shaaracyadii awal aanay mari jirin baabuurta iyo dadka iyo buuqa oo aada ugu fara badnaa. ururada u dooda xuquuqda dhinaca xayawaanka ayaa sheegay in ay xayawaanka lafaantooda ay isweydiinayaan halka bini'aadankii ay tageen, iyadoo ay raashin fara badan ay ka heli jireen goobaha ay dadku ay ku badan yihiin. tallaabadan ayaa waxa ay noqonaysaa markii ugu horeysay taariikhda bini'aadanka ee xayawaanku ay gebi ahaanba ay la wareegeen shaaracyadii waaweynaa ee magaalooyinka awal ay buuxdhaafiyeen dadku. Dalmar, warbaahinta qaranka, magaalada London.